وعنو wanaagsan daawada meel kasta oo aad ka joogto daafaha caalamka ee dunida fadlan ku soo dhawow barnaamijka falaqaynta siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka qodobadaan barnaamijka ku soo qaadan doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee ka soo cusboonaaday duqeymaha ka socda marinka Gaza Mareykanka oo dhaleeceeyay hadal Erdogan uu ka yiri colaadda Israa'iil iyo Falastiin maxaa ka dhacaya daanta galbeed maxaa shalay galinkii hore ka dhacay xadka maxay tahay rabshadaha ka socda xadka oo maalinba maalinka xiga sii kordhaya iyo colaadda oo sii balaaranaysa qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka fadlan ku soo dhawow mar kale barnaamijka falaqaynta siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ka hadashay hadal dhawaan ka soo baxay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ku saabsanaa colaadda Israa'iil iyo Gaza afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Erdogan uu adeegsaday erayo ka dhan ah dadka Yahuudda isla markaana ay si xoogan u cambaareynayaan hadalkaas madaxweyne Erdogan waxa uu Israa'iil ku tilmaamay dal dilaa ah xilli uu Isniintii ka hadlayay dagaalka Israa'iil iyo Falastiin wuxuu sheegay in go'aanka uu Mareykanka ku shaaciyay in Qudus tahay caasimadda Israa'iil ay sare u qaadi karto damaca Israa'iil ay dhiigga badan ku daadin karto maxaa ka dhacay daanta galbeed dad badan oo Falastiiniyiin ah oo degan daanta galbeed iyo bariga Qudus ayaa ka qayb qaatay gadood guud oo looga soo horjeeday duqeynta Israa'iil ee Gaza meelo kamid ah Israa'iil oo ay ku badan yihiin carabta Israa'iil sida Haif ayaa iyaguna ku soo biiray shaqo joojinta waxaa la xiray adeegyadii bulshada iskuuladii iyo goobo ganacsi oo badan dagaallo ayaa ka dhacay dhowr meelood magaalada Ramallah ee daanta galbeed booliska Israa'iil waxa ay sheegeen in rasaas lagu furay iyaguna ay rasaas ku jawaabeen saddex Falastiiniyiin ah oo aaga ku sugnayd ayaa la dilay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka qof kale oo Falastiini ah ayaa la dilay kadib markii uu isku dayay in uu weeraro askar ku sugneed Hebron sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil Biden gacmaha ayuu dhiig ku sitaa madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa Isniintii sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu gacmaha dhiig ku sito sababo la xiriira taageeradiisa dagaalka Israa'iil ay ku qaadayso marinka Gaza madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa Isniintii sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu gacmaha dhiig ku sito sababo la xiriira taageeradiisa dagaalka Israa'iil ay ku qaadayso marinka Gaza halka Erdogan uu ku jiray khudbad uu telefishinka ka jeediyay oo dalka oo dhan laga fiirsanayay ayaa ah weerarkii ugu adkaa ee uu ku qaado Biden tan iyo markii uu yimid aqalka cad bishii Janaayo waxaad gacmahaaga dhiigga leh ku qoraysaa taariikh waad nagu qasbaysaa in aan sidaan u hadalno sababtoo ah intaan ka badan kama aamusi karno arrintan ayuu yiri madaxweyne Erdogan ayaa taageero xoogan kaga kasbaday bariga dhexe u ololeyntiisii qadiyadda Falastiin 18 sano ee uu xukumayay Turkiga waxa uu toddobaadkii tagay ku eedeeyay Israa'iil in ay qaadayso argagixisanimo waxa uuna wacad ku maray in uu dunida isugu keeni doono difaaca Gaza Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ololaha Gaza uu awood buuxda ku socdo ayna qasab tahay in ay ku guuleystaan ka hortagga dagaalka mustaqbalka Hamas wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa tirada dhimashada tan iyo markii duqeymuhu ay bilowdeen ku sheegtay 201 qof oo ay ku jiraan 58 caruur ah iyo 34 haween ah mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in 10 qof ay ku jiraan 2 caruur ah lagaga dilay dagaal gantaalo ay soo tuureen Hamas